بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد waxaan idin wadnaa muuqaalkan qiimaha leh muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa haddii alla idmo asraarta iyo karaamaadka iyo khawaaricaadaadka ku sugan suuratul waaqica ee uu leedahay risqiga arsaaqada tanannimada hodantinimada iyo maalka ee uu leedahay lijalbi risq qur-aanka ilaahay wa kalaamullaahi waxaana ku jiro cajaa'ib fara badan ayaa ku jiro qur-aanka suurad walba waxay iska leedahay cajaa'ib iyadoo oo gaar ah iyo khasaa'is ayay iska leedahay suurad walba suuratul waaqica khasaa'isteeda waxaa ka mid ah oo ilaahay ku galladaystay in arsaaqda ay soo jiidayso oo qofkii akhrisado arsaaqda ay soo jiidayso arsaaq waasaca uu helayo faqrina ay ka anfinayso hadda faqri waa shay xun rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magangeli jiray faqri uu dhihi jiray ilaahay faqriga kaa magangalay allahumma innii acuudu bika min alfaqri ilaahay faqri aan kaa magangalay faqri wax fiican maahan faqri adduunya faqri aakhiraba ma wanaagsana marka suuratul waaqica akhriskeeda faqriga ayaa anfisaa arsaaqdana waa lagu helaa marka arsaaqda aan leenahay dadka qaar si u malayaan arsaaqda ma aha dadka arsaaqda waxay u malayaan keliya xoolo bis lacag keliya arsaaq u malayaan ama wax la cuno arsaaqdu way fara badan tahay waxay noqotaa caafimaad waa arsaaq waa risqi caafimaadku waa arsaaq guurkii waa arsaaq awlaaddii waa arsaaq maalkiina waa arsaaq waxaasoo dhan ilaahay caafimaad ku arsuqo maal ilaah ku arsuqo awlaad ilaah ku arsuqo xaas ilaah ku arsuqo guur haddaad dumartaana ilaahay zawj saalax ilaah ku siiyo haddaad aragtaana ilaahay zawjo saalax ilaah ku siiyo kul arsaaq waa marka dadka waxay aad u raadiyaan ee jecel yihiin siday hanti ku heli lahaayeen oo lacag fara badan ku shaqayn lahaayeen ee arsaaq fara badan ay ku soo xasil lahaayeen waxaan idiin sheegaynaa insha allahu tacaala maanta muuqaalkan dadkiina daawado kuna dhaqmo oo si dhaba u qaato ee tijaabiyo markuu tijaabinayna welibana yaqiin ahaan u tijaabiyo ee bal arag aan u tijaabine soo yaqiinsan qaato satara cajaban insha allah cajaa'ib ayuu arki doonaa cajaa'ib ayuu arki doonaa qofkaas haddaba suuratul waaqica habab fara badan loo akhriya habab fara badan hababka loo akhriya waxaa ka mid ah suuratul waaqica 7 habeen ayaa la akhrinayaa cadadna oo laga akhrinayaa kadibna ducaa lagu soo khatimayaa markaas cajaa'ibta arki doontaa insha allah malyuneer ay noqonaysaa malaayiin fara badan oo hanti ah aad heli doontaa biidni illaahi albaari waana mujarabun horaa loo tijaabiyey adiguna arag insha allah waxaad bilaabaysaa suuratul waaqica leylata aljumca habeenka jumcaha bilaabaysaa habeenka jumcaha ayaad bilaabaysaa insha allah 7 habeenna wadaysaa habeenka jumcaha sabti ahad ilaa leylatul khamiis ilaa habeenka khamiista habeenka jumcaha markaa ku leenahay waa sida islaamka u yaqaano maaha sida dadka u xisaabiyaan ma ah sida telefishinada iyo idaacadaha ku aragtid ma ah oo habeenka jumcaha iyadoo la joogo dhihi maa waa habeen khamiis ma ah yoomku wuxuu ka bilaabanaya markay qoraxdu dhacdo habeenkaas biri maalinta aanis habeenkeeda ayaa la guda galay qoraxda la xisaabinaya ma ahan taariikhdan oo saacadaha ku jirto iyo xisaabsan ma ahan islaamku wuxuu u bilaabmaa taariikhdu u bilaabmataa markay qoraxdu dhacdo min ghuruubi shams markay qoraxda dhacdo maalinta waxaa la guda galay hadda maanta waa khamiis ka soo tusaale aan siiyo maanta khamiisa joogna anaga markay qoraxda dhacdo caawa jumca la gelaya habeen jumca leylatu jumca waa garanaysaan waxaa ku daalimeyn kulliina aa fahmaysaane habeenka jumcaha waxaad soo kacaysaa xilliga dambe muntasafa alleyl kala barka habeenka 6 saac ama 7 saac wixii loo gaaro 8 saac xilligaas soo kac soo weyse qaado makaan daahira ayaad ku akhrinaysaa waxaad akhrinaysaa suuratul waaqica 5 maraat 5 jeer akhrinaysaa 5 jeer waa soo bilowsaa dhammaynaysaa soo bilow dhammeey
shan jeer waa garanaysaa shan jeer akhrinaysaa waxaad ku soo khatimaysaa markaad dhammaysid ducada aan sheegi doono insha allah habeenka ku xiga leylatu thaani waa habeenka sabtige shan jeer ka akhrinaysaa isla xilligii nafs alwaqti waxaa ka akhrinaysaa shan jeer habeenka saddexaad shan jeer ilaa leylatu alakhiira habeenka u dambeeyo waa leylatu alkhamiis ogow jumca bilaabnay jumca sabti alaxad alaithniin wathulathaa walarbica khamiis habeenka khamiisa u dambeyso waxaad ka akhrinaysaa 6 maraat 6 jeer ka akhrinaysaa shan jeer ma ah habeenka u dambeeyo waa 6 jeer lixdii habeen hore waxaad soo akrinaysay shan lix min shana waa 30 habeenka u dambeeyo oo khamiis ahna habeenka toddobaad ahna waxaad akhrinaysaa 6 jeer marka waxay noqonaysaa isku dar cumuuman inaad ka akhrisay 30 iyo 6 jeer habeen walbana markaad dhammaysid oo 5 jeer markaad dhammaysid ducaadan ku soo khatimaysaa insha allah ducaadan sheegi doono ayaa ku soo khatimaysaa ilaa idinkiis markaad dhammaysid waxaa leedahay allahuma in kaana risqii fi الsamaa faanzilhu wain kaana fi اlardi faakhrij wain kaana baciida faqaribhu wain kaana qariiban fayasirhu wain kaana qaliilan fakahirhu wain kaana kahiiran fabaarik lii fiih maa sha allah waa duca aad u fudud waay ducaadan ku soo khatimaysaa waxaa leedahay markaad dhammaysid hal mar ka sameeya marka shanta jeer ka dhammaysid duubaan ka dhammaysid halada allahumma in kana rizqi fi samaa faanzilhu ilaahay rizqiga samada hadduu ahaaday dhexdeeda ilaahay soo deji faanzilhu ala ilaahay soo deji wa in kana fi al-ardi faakhrij haddii dhulka uu ku jirana ilaa ma ogid meel rizqiga jira ilaahay oge ilaahay soo bix wa in kana baciidan faqarib ilaa doo fog yahay rizqiga fog yahana soo dhaweey وإن كان بعيدا فقربه دو فوق يلا يسو دوي وإن كان قريبا إلا دو دوي هنا فيسيره إفوضي ويسهل سيفوض أنكو حلو وإن كان قليلا فكثره رزقي دو يري هاي ورزقي يرلي قلت لقل إلى إيبادي دعاء قدرت العلساء دعاء بدي مركا دين مركا دي لا مركا ولا أرزاق غير يقري حياك بري هادين دعاء عجيب إلهي هدو رزقي دو يري هنا إلهي إيبادي وإن كان كثيرا فبارك لي فيه إلا دو فربدن رزقينا إلا بركي آخر نساء إلا مال فربدن أو بركة لهن حوتري مع ملايين دولار أو بركة لهن $1 أو بركة له أيا كافي عنه كون اسم بركة عجيبة بركة الودع لا بركة الودع استاه اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه دعاء ساكو ختميسا إن شاء الله habeen caawa jumcaha ah habeenka jumcaha bilaabaysaa muuqaalkan hadda dog soo gaaro caawa jumcaha ka faa'iideyso la bilaabo muuqaalkan la bilaabo 7 habeen wadaysaa xilligu ku soo gaaro jumceeda bilaabo kadibna habeen kasta waxaa ka akhrinaysaa 5 jeer adoo daahir ah makaan daahirna ku akhri xilliga dambana hala gaaro 6 saac wixii ka dambeeyo 6 saac haddaa soo jeed ku gaartid waa akhrisan kartaa dargata saacati laakiin soo kac 8 saac waa akhrisan kartaa aduu bacad muntasif ileyl waa kala barka habeenka wixii ka dambeeyo 6 saac ilaa laga gaaro fajrka inta laga gaarayo saacad arta ka soo kac ka akhriso waa lagu fududeeyay markaan daahirna ku akhri habeenka 5 jeer ka akhri habeenka u dambeeyana 6 jeer ka akhri kadibna ducadan ku soo khatin إن شاء الله تعالى وحين رجلنا أرزاق واسعة وبركة الله كل إلى أرزاقه سان إن شاء الله تعالى خيراتك وكال ميسانو وحولا أرادين محتى هاي سا خيراتك يدين وكال ميسانو وإلهي ميل الرجال كي وبحنو مرة مال وإلهي رديس المدلبين مدوننا إن شاء الله تعالى تذكر حول إلهي سنة وحاكم بورننا إن حول إلهي أوسي كفى يستانو من أوجه الخير يكون بحيان كوا حول إلهي سنة إن يستان haddii ilaahay maal oo sii lahaa inay ku bixiyaan nawjul khayr markaas waxay la darajo joogaan kuwa ilaahay hanta siiyey ee masaajidaha dhisaayo ceelasha qodayo xarumaha diinta dhisaayo ay la meel joogayaan niyatul muumin khayr min amalihi dhammaan risq waasica ilaahay ka bareen insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh